kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliweyn Production kuna soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada ku daawo doontaan hadduu rabiidmo waxa ka mid noqon doono ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo shir degdeg ah la yeeshay golaha wasiirada iyo taliyayaasha militariga iyo sirdoonka Soomaaliya hadduu waxaan la wadaagi doonaa kulanka degdeg ah ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha laga hadlay iyo xogihii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Xamza oo amar dul dhigay Maha Salaad iyo General Oduwa Yusuf Raage wararkii ugu dambeeyay xogaha sheegayo in maanta xilka laga qaadayo General Oduwa iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya oo macluumaad dheeraad ah laga helayo hadaba qaybtan waxay kugu soo gudbin doonaa shirka degdeg ah ee golaha wasiirada iyo waxyaabihii laga hadlay oo guux xoogan abuuray barnaamijyadeedkan ayaan kugu soo gudbin doonaa go'aamo ka soo baxay kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya qodobada kale oo daawad doontaan waxa ka mid noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhaleeceemo kadib xalay dhigiisa u shubay dadka shacabka ah ee ku dhibaataysan cisbitaalada Muqdisho kuwaas oo ay saameeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada hadaba waxaan idin wadaagi doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo go'aan lama filaan ah qaatay xilli maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen macluumaad ah in madaxweynuhu arrimo caafimaad uu aaday waddanka Imaaraadka Carabta hadaba dhiiga shacabka uu shubay madaxweynaha oo siyaabooyin kala duwan loo hadlayo ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijyadeena wararkeena kale tan waxa ka mid noqon doono degniino amni oo la soo saarayo kadib qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay magaalada hadaba waxaan idin wadaagi doonaa meelaha bartilmaameedyada ee la warinayo inay ka dhici karaan qaraxyo waaweyn oo la soo saaray iyo xogihii ugu dambeeyay cabsi amni oo ka jirta magaalada Muqdisho ciidamada amniga oo aad u tiro badan oo wadooyinka qaar ee Muqdisho la soo dhoobay iyo amniga Muqdisho oo hadda u muuqdo mid faraha ka sii baxayo hadaba goobaha cabsida amni laga muujinayo iyo weerarada qorsheysan oo ay kooxda argagixisada ee al-shabaab ka geysan karaan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena macluumaadadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawo doontaa barnaamijyadeena hasaateenteenu gudagelin daawadayaal dhamaantiinba waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkana la gaadhaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadiina kala maasanidin waxaan ku bilaabayaa kulan degdeg ah oo golaha wasiirada yeesheen oo looga yeeray taliyayaasha militariga iyo booliiska iyo sirdoonka Soomaaliya kulankaas oo xalay ka dhacay xafiiska xukuumadda waxyaabihii kulanka go'aamada ka soo baxay ee lagu gorfeeyay ayaanu qaybtan ku eegi doonaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre ayaa xalay kulan degdeg ah gudoomiyay kulankaasi oo ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya isla markaasina go'aamo culculus ay ka soo baxeen kadib markii ra'iisul wasaaruhu shirkan uu shir gudoomiyay looga yeeray agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo waliba taliyayaasha militariga iyo booliiska Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa kulanka degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada oo ay goobjeeg ka hayeen taliyayaasha ciidamada ayaa waxa uu daarnaa qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba dhibaatooyinka ee kooxda qawaariijta ah ee magaca diinta Islaamka ku qaraabanaya ay u geysteen dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed go'aan ayaana ka soo baxay go'aanada ka soo baxay waxa ka mid ah koow dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay lacag dhan 1 milyan oo dollar ugu deeqday sanduuqa gurmadka ee degdega si wax looga qabto dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii waxxushnimada ahaa oo ay argagixisada qawaariijta ay ku beegsadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay kafaalo qaadaysaa baa lagu yiri daaweynta iyo daryeelka dadka ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ee kilometer 5 ka dhacay saddex waxa kale oo guluhu isku raaceen in la kafaalo qaado waxbarashada caruurta ay ka tageen shuhaadadii ku nafwaayay qaraxyadii shalay iyada oo laamba qaadayo balanqaadkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu jeediyay markii uu booqday goobta uu qarax uu ka dhacay afar waxa ay xukuumaddu faraysaa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare in muddo 3 maalmood ah la fasaxo goobaha waxbarashada si ay waqti ugu helaan ardaydu inay sii wataan howlaha gurmadka ee socdo ee lagu gurmanayo dadkii ay saameysay musiibadii ka dhacday Muqdisho 5 waxa dhamaan wasaaradaha iyo waliba hay'adaha kale ee dawladda la faray inay si buuxda uga qayb qaataan gurmadka socda qodobka lixaad ee ka soo baxay shirkan degdega ayaa waxa ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qaadista tallaabooyin cadcad oo amniga lagu sugayo lana sameynayo isbeddelada degdega ah oo la jaan qaadayo xaaladda dalka ka jirta qodobkaas oo muujinayo in dawladda federaalka ee Soomaaliya u diyaar garoobayso xilka qaadis degdeg ah oo lagu sameynayo qaar kamid ah saraakiisha ciidamada todoba waxa golaha wasiirada si xushmad leh shacabka Soomaaliyeed uga codsadeen in ay yeeshaan feejignaan dheeri ah inta lagu guda jiro howlgalka lagu ciribtirayo cadawga qawaariijta dhammaan goobihii isku farasaareen ciidamada qaranka iyo shacabka taageerayo looga adkaaday sidaas darteed baa la yiri iyagoo nafla caari ah isku dayayaan inay beegsadaan shacabka masaakiinta ah
qodobada 8 iyo 9 waxaa lagu yiri xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay mar kale ballan qaadaysaa in qawaariijta dalka laga ciribtirayo isla markaasina ciidamada qalabka sida si wadi doonaan gulufka iyo waliba guulaha badan ee laga gaarayo argagixisada iyo waxa kale oo golaha wasiiradu ay isku afgarteen in dib loo yeegleelo bangiga kaydka dhiigga ee heer qaran si sare loogu qaado adeega caafimaadka ee dadka shacabka ah golaha ayaa waxa uu mar kale tacsi u diray qoysaskii iyo ehelada dadkii ku xiloobay qarxii kilometer 5 ka dhacay ama laamiraha Soobe shirkan aan caadigan ayaa golaha waxa uu warbixin uu ka dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA iyo ra'iisul wasaaraha oo magacaabay guddiga gurmadka qarxidii dhacay shalay iyo laamaha amniga ee hay'adda maareynta musiibooyinka isku soo wada duub shirkan ayaa waxyaabaha la hadlayo ka soo baxay waxa kamid ah in xukuumaddu ay qorsheynayso in xilka ka qaado taliyayaasha ciidamada geesta kale tan cabsi amni ayaa laga soo saaraya magaalada Muqdisho caasimada dalka iyadoo digniino qaraxyo kale ah oo magaalada Muqdisho ka dhici kara la soo saarayo digniintan la soo saaray ayaa muujinayso targetyada meelaha qaar oo ay weerarada gaarka ah ka dhici karaan oo ay kamid tahay hotel Elad Muqdisho kilometer 4 jagbontiyada ku yaalo SWL hotel iyo waliba hotelada kale Durbin iyo aaga wadada dabka si la mid ah xeebta Lido Maka al-Mukarrama fil Soomaaliya jagboontiyadeeda hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed jagboontiyadeeda iyo laba dhismo oo suuqa xayaad ku yaalo ayaa la warinayaa inay tahay meelaha ay suuragal tahay in weeraro kale oo qaraxyo ay ka dhacaan digniinahan amniga la soo saarayo ayaa muujinaya fashilka sirdoonka iyo qaybtiisa xuraansiga waxaana ay u muuqataa in haatan weeraradan kale ee laga digayo ay abuurayso qalqal amni oo magaalada ka taagnaado ee muddooyinka soo aadan iyadoo dhibaatadii ugu dambeysay qarxidii laamiraha Soobe ka dhacay aanay wili ka soo kaban shacabka Soomaaliyeed geesta kale tan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiig u shubay shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay dhiig u shubay dadka qaba dhaawacyada waxaana uu mar kale bulshada ka codsaday in loo gurmado dadka muddada wajahaya duruufaha caafimaad iyo waliba ku nololeed xaaladaha adag haatan kula jira isbitaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa adkeeyay baaqiisa ku aadanaa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan samata bixinta dadka ku dhibaatoobay qarxidii Soobe ka dhacay hasaatee dhiiga madaxweynuhu uu shubay ayaa dad badan siyaabooyin kala duwan u hadlayeen saacadihii la soo dhaafay iyadoo dadku qaar ay ku macneynayeen in madaxweynuhu sawirka laga soo qaaday uu muujinayo mid lagu sawiray oo kaliya balse waayidii ugu dambeeyay xaaladiisa caafimaad dad badan ay warinayeen in madaxweynuhu xaalada caafimaad ugu aaday wadanka Imaaraadka Carabta inkastoo aysan xaqiijin karin warbaahinta Soomaaliyeed balse madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhiiggiisa ugu deeqay shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaartay sida ay baahisay madaxtooyada Soomaaliya iyo warbaahinta dawladda gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo meeraya barnaamijyada kala socoteen warbaahinta Soomaaliyeed production tan iyo kulantii dambe warsan